qofku markuusan reer lahayn xaaladiisu ma sugna, qalbigiisu ma degana. laakiin markuu reer yeesho oo xaas yeesho markaasba wuxuu gelayaa liiska bani aadamka jira ee nool buu galaya. gurigii hebel baa la leeyahay, gurigii hebel. hadduusan reer lahayn meeshuu rabu iska seexdaa. waad aragta haddii masjidkan uu cishaha ku tukado iska seexdo lalama yaabayo. laakiin markuu qoys yeesho bulshadii buu ka tirsan yahay, waa lagu xisaabtamaya, waa lagu soo hoyanaya, waa la martinaya, baahidii bulshada ayaa lagu xisaabsanaya, waxbaa lagu qoranayaa, sharaftiisii oo dhan baa bannaanka imanaysa. laakiin mas-uuliyad baa daba socoto, xil buu qaadayaaye wax iska galo iska soo baxa maaha. habeenkaas koowaad marka shareecadu waxay noo jidaysay aadaab suurtagal ka dhigi karta in ilmahan calool geli doona uu noqdo ilmo saalix. nabigana calayhi salaatu wassalaam markuu la talinayo wuxuu ku yidhi ninka iyo xaaskiisa aqal gelaya waxa kaloo dhan iska hilmaamuy. hadalkiisa waxaa ka mid ahaa amaa ina axadakum idaa ataa ahlahu, waana habeenka koowaad iyo wixii ka dambeeya oo dhan wey. axadkiin markuu reerkiisa la kulmayo, xaaskiisa la kulmayo, oo xalaasha ahaa, hadduu yidhaahdo bismi illaah allaahuma jannibna ashaytaan wajannib ashaytaana maa rasaqtana, ilaahayow magacaagan ku bilaabaynaa gurigan, kulankan barakaysanna magacaagan ku bilaabaynaa. ilaahayow shaydaan naga foge, waxaad nagu arsaaqtana shaydaan ka foge. hadduu yidhaahdo soo ma arkaysid, annaga shaydaan naga foge, waxaad nagu arsaaqaysidna shaydaan ka dheere. hadduu saas yidhaahdo waladna lagu arsaaqo, waxaa la rajaynayaa inuusan shaydaan ku dhigin. la kulmayo, xaaskiisa la kulmayo oo xalaasha ahaa, hadduu yidhaahdo bismi illaah allaahuma jannibna ashaytaan